Sheekh Maxamed Iimaan oo ahaa shaqsi aabbihii la dilay 51 sano ka hor amaba sanadkii 1971 ayaa la garan waayay xilligaasi ciddii dishay iyo sababta ay u dileen. Kadibna qoyskiisii waxay go'aansadeen inaan la sii dabagelin cidda dishay, meydkana la iska aasto wakhtigaasi. Intaa kadib, waxaa toddobaadkii hore raadraaciya baadigoob uu sameeyey ku guulaystay qofkii uu gacantiisa ku baxay marxuumkii dhintay oo lagu magacaabi jiray Iimaan, oo helay ciddii ay ehelka marxuumka ahaayeen. Ninka uu gacantiisa ku baxay marxuumku waxa uu helay oo uu la kulmay wiilkii uu dhalay marxuumku oo magaciisa la yidhaahdo Sheekh Maxamed Iimaan, wuxuuna sheegay inuu yahay ninkii dilka aabbihii ku lug lahaa. Go'aanka uu gaadhayana ay gacantiisa ku jirto xilligan oo u dhaxayso xilligii aabbihii la dilay waqti aad u fog. Intaa kadib, Sheekh Maxamed Iimaan oo ahaa wiilka marxuumka ayaa ku yidhi amaba ka codsaday ninka wax dilay in waqti la siiyo si uu uga soo tashado go'aanka uu gaadhayo. Haddaba, caawa ayay ahayd ballantii laysku ogaa in laysu yimaado si xalka ugu dambeeya looga gaadho dhacdadaasi dhacday 51 sano ka hor ee ahayd dhiigga Islaamka, waxaana ugu dambeyntii lagu heshiiyey in mag la kala qaato, sidaasina la isku saamaxo. Haddaba, geyiga Soomaalida oo dilal qorshaysan ay ka dhacaan ayay adag tahay in dhacdooyin noocan oo kale ah laga helo. Fanaanka Ilayare xaaladiisa caafimaad ayaa la sheegay inay soo hagaagayso kadib qalliin uu ku galay dalka Turkiga. Fanaanka ayaa xaaladiisa caafimaad dhowaan loo qaaday dalka Turkiga kadib fariimo murugo leh oo uu baraha bulshada ku faafiyey, waxaana hadda qalliinka kadib loo bilaabay daawooyin. Dhakhaatiirta ayaana sheegay in xaaladiisa caafimaad ay aad u wanaagsan tahay. Bulshada Soomaaliyeed ayuuna fanaanku u soo diray fariimo uu ku weydiisanayo inay u soo duceeyaan. Qalliinka ayaa fanaanka looga sameeyay dhanka madaxa, kaasi oo xanuunkiisu ahaa buro madaxa ka soo baxday. Iile Cabdulaahi Nuune Ilayare ayaa ah fanaan taageero badan ku leh bulshada Soomaalida, sidoo kalena bulshada maaweeliya, waxaana la sheegay in saacado ay qaadatay qalliinka fanaanka ee dhanka madaxa looga sameeyey, taasi oo murugo weyn ku haysay fanaanka tan iyo intii Turkiga loo qaaday ka hor. Baaritaanno hordhac ah oo la sameeyey ayaa muujinaya inaysan jirin khatar weyn oo fanaanka uu wajahayo. Mid ka mid ah qoyska fanaanka oo la hadlay saxaafadda ayaa sheegay in qalliinku uu qaatay muddo dhowr saac ah, kaasi oo ka dhacay magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga.